السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أول أكسن لما بدأوا ذي الكسر هذا برنامج كني صدح ليدا صوبناها صلى الله عليه وسلم. برنامج كصدح ليدا صوبناه وكل ما قابنا إنه قادم دون نقار كم إذا أحاديث صدح ليدا هي كسر النبي محمد نصيحة نحريسته يدلك وحشيك جس كل كل جي ماده هي بجار أي ربيوسي النبي محمد شيجست إريك قابن أو معنى يلا أدو بلارن له sidoo kale waxa uu nabigu sallallahu alayhi wasallam xirfad heer sareysa u lahaa kala hormeynta iyo kala habeynta ereyada uu umadiisa gaarsiinayo kani waa mid kamid ah badda aan xeeliga lahayn ee axaadiistiisa oo ereyo ku astaysan tirada 3 fariinta uu barnaamijkani sidaana waa inaad daawada dhugato oo dheehato ereyada suubanaha sallallahu alayhi wasallam kadibna aad adigu kala baxdo fariinta ay sidaan hadii ay tahay waajib uu ku farayo xumaan uu ku diidayo أما وأنا كاغت من النبي قاعد تعشهاي حديث كنا ما أنت وحورنا يا صحابي قال هذا أبو هريرة رضي الله عنه ومجيء سلورنشر عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة وحني محمد كورني صلى الله عليه وسلم إن ويري إلهي أيايري صدح قف مالين تقيامه أنا جاي للدودية قف ككوباد رجل أعطى بي ثم غدر قف أنا قال لي آمني أما دار لا دارتي كدبنا أنت وقفك أمان سيي ballan fur hadana la yimi oo kaga baxay ballankii laba qof xor ah inta uu iibiyay xoolihii marka uu ka helay cunay ka saddexaad qof shaqaale ah shaqo u dirsaday shaqadii markuu u dhameystirayna siin waayay mushqaayadiisii saddexdaaba ilaahay waxa uu yiri maalinta qiyaame aniga ayaa la doodaya xadiidka waxa soo saaray imaam muslim waxaan xadiidkan ka qaadanaynaa in qofka muslimka ahi uu iska ilaaliyo hadii uu qof ilaahay magaciisa ku aaminay oo u dhaartay in uu ballanka kaga baxo oo waxa weeye uu dhibaato gaarsiiyo laba in qof xor ah ay xaraan tahay in la iibiyo qodobka ugu dambeeya ugu muhiimsanina waa in qofka shaqaalaha ah ee aad shaqo u dirsato marka uu shaqada ku dhameeyo inaad mushqaayadiisa siiso waxa soo arooray axaadiista kale qofka ku shaqeeya intaan dhididkiisu qalalin inaad wixiisa siiso dhamaantii waxaan idinkaga tagayaa khayr adduunyo mid aakhiro ayaan ilaahay inoo weydiinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh